dowladda waddanka Mareykanka ayaa ku eedeysay dhowr saraakiil sarsare ah oo ku sugan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay ku lug leeyihiin musuqmaasuq la xiriira doorashadii madaxtinimada ee lagu murmay ee dhawaan dalkaasi ka dhacday. Mareykanka ayaa saraakiishaasi ka tirsan guddiga doorashada waxa uu ka mamnuucay fiisaha ama dalkugalka waddanka Mareykanka. waxaana saraakiishaasi ka mid ah madaxa guddigaasi doorashada oo lagu magacaabo Corneille Nangaa iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka. waxaa isaguna ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga. in Mareykanku uu dalkugalkiisa ama fiisaha uu ka mamnuuco saraakiisha sarsare ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa hab uu ku muujinayo inuu og yahay in doorashadaasi lagu shubtay. kormeerayaal badan ayaa rumaysan in codbixinta oo dhan la soo abaabulay isla markaana madaxweynaha cusub ee Congo Felix Tshisekedi uu helay codad aad uga yar musharaxii la tartamayay ee mucaaradka ee lagu magacaabo Martin Fayulu. balse beesha caalamka oo ay ku jiraan Midowga Afrika, Mareykanka iyo dalalka Midowga Yurub ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan iyaga oo aaminsan inay khatar ka dhalan karto waa haddii ay farageliyaan. sidaasi darteedna ninka ka degay xilka madaxtinimo ee Joseph Kabila ayaa weli sii ahaanaya mid awood badan leh isagoo ah madaxa isbahaysiga haysta inta badan kuraasta baarlamaanka. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.